Okay, waxaan bilaabaynaa marka muuqaalkii aan ka duubeynay. Casharka maanta qaadanaya dib ugu celinaa marka ardayda qaar faham weeye. Mar alla markaa soo kicisa AutoCAD waxaa arkaysaa in uu ka kooban yahay windows kala duwan oo badan. Tusaalahaan oo kale qaybtan draw alla, qaybtan modify, qaybtan annotation, layers, blocks, properties. Xoog waxaan saari doonaa hadda maadaama bilow aan ahnay qaybta koowaad ee drawga. qaybta koowaad draw waxay ka kooban tahay line, maxaa la dhahaa line waa midka koowaad ee wax walba laga sawiro. shay walba sawiraya waa midka aas-aaska u ah midka wax laga sawiraya. line kana la dhahaa sidaan u yaal aan delete. waxaan u xoga polyline iyo line farqi u dhexeeya waxa waaye polyline sidoo kale waa line asine laakiin mar alla marka ku sawirtid wuxuu uga duwan yahay line-ka waxa waaye asaga wuu is wataa ma kala harsan. tusaalahaan kan oo kale dhinacaan iyo dhinacaan afar dhinac uu leeyahay haddaa mid kamid ku dhufto dhammaan way doormayaan ma arkaysaa kaas waxaa la polyline alla mar walba faa'iido leeyahay jirto oo la isticmaalo. circle-ka noocyo badan uu leeyahay cashara si fiican ugu sharixi doonaa laakiin hadda waa kor mareynaa. circle waxaa jiro markaa ku dhufatid dhexda aa gelin kartid diameter inta rabtid. kan koowaad waxaa la center diameter alla markaa ku dhufatid ay ku qoran tahay magaca akhri center radius sorry. kan labaad waxaa la center diameter waa ku dhufanaysaa diameter kaa gelinaysaa. kan saddexaad waxaa la dhahaa 2 point circle between 2 points halkaana ku dhufane waa dhamaad circle-kaas. kan afraad waxaa la 3 point 3 meel oo point u baahan kow labo kabacdi sawir ma 3 point u baahan kan shanaad waxaa la dhahaa tan radius laba jeer ku dhufane kabacdi radius ka gelinaysaa marka. kan u dambeeya waa tan saddex line u baahan yahay ku dhaco saddex meel ku dhaco u baahan yahay halkan maybe halkan markaysa saddex meel oo taabto u baahan yahay asigana mar kale si fiican u sharxi doona hadda kaliya waxaan ka rabaa in aad ogaataan wuxuu yahay. waxaa soo haray selection AutoCAD marka wax dooranaysid laba qaab wax loo doortaa highlight marka highlight gareynaysid ama calaamadaysid. dadka qaar waxay sameynayaan markay meel ku dhuftaan muuska si fiican u haynaya markaas waxaan u sawirmaya saan mal rabo. AutoCAD waa sahal hal mar kaliya ku sii faraha ka qaad muuska ee saa u jiid kabacdi kaliya sii lama rabo inaad markaa ku dhufatid aad ku dhignaatid muuska saa ugu dhignaatid lama rabo waxaas sax ma aha markaysaa saas lama sameeyo. كليك أهم برسينسا ساسا وهلا من بلوغ ساسوري أما كليك أسينسا عيارك ساسوري بلوغ حصور مع مركا أنت مال كله فتيت صلاحنا وكله هوس مديك أديد أصور مع عيارك حصور مع مركا مال كله فتيت أكر بديح أديد معنا كرة بحوية بديحنا أصور على مركا صور مع فرق أقول حين وحواي مركي اللاين سور صلاحان وحارك يا فيري لاين كان ربعنا هذا هايلايت جري أسير علامة هدي أن inta ku dhufto aan hoos midig aad buluug noqonaya buluuga asiga ilaa line aan ka wada daboolo ma ii doormayo hadii aan line wax yar oo iga banaan yahay bas ma arkaysaa ma doormayo waligiis ma doormayo ma arkaysaa. wuxuu u baahan yahay line-kii wixii dhan in la soo wada geliyo u baahan yahay buluugaas markaas oo doorma waa direedi karaa markaas. laakiin greenka fiiri hadii aan wax yar ka taabto line-kan intaas yar ka uu faantaa ka taabto uu doorma ودليدي كلامه فرق بقول حي انت سواء من وحو u baahan yahay kulli in la wada geliyo min wuxuu u baahan yahay xirno ka taabto soo baahan intaas kadib marka units ka saxeena units marka qortid units halkan laga masax units halkan waxa laga saxaa bas position ka laga saxaa laba g okay units waxa laga saxaa -dwg units waxa ay dooran unit ka hadda ay dooran waa number 2 waxa ku jiro feet ku jiro ma arkaysa ani waxa rabaa meter waxa waa number 6 6 leeyahay space ilaa mar laad ka soo baxo hadda iskii baa leeyahay hadda units hadaa qoro halkan automatically meter ayada imaanaysa ma baahan xataa inaa saxani okay yaa leeyahay meesha daaya ma saxina hadaa xasuustaan waxaan noo xigay marka layer sida loo abuuro layerka waxa abuuraysaa layer qor space taa markaas ama layer tag button-kaas ku dhufo labada jeer waa sameyn kartaa halkaana ku dhufanaysaa layer abuuraysaa waxa la lines 1 alla line-ka colorkiisa cadaan ka dhig noociisa continuous ha ahaado weightkiisana ha iska yaraado midka u yar ha ahaado 000 ha ahaado isagana mar labaad hadana new ku dhufo lines 2 u bixi colorkiisa cad ha ahaado continuous ha ahaado noociisa type-ka line weight meesha qoonta laakiin inta kruxi sorry continuous ka bedel line type ka bedel load deh midkan iso dash ka dooro okay deh
waa uu soo galay laakiin markuu doorno buluug wuxuu kuu saaran yahay continuous kuu saaran ka bedel iso dash gee okay dhe mar saddexaad ku dhufaadane waxaad doorataa hidden lines colorkiisa waxaa ka dhigaysaa gray okay aa leedahay asagaa marka koobiyey continuous ma noqdo marka hidden lineska wuxuu noqdaa dash dash uu noqdaa mar afaraad kalik sii waxaa ku bixisaa dimensions u bixi dimensions halkan ku dhufo colorka waxaa ka dhigtaa orange okay dhe line type-ka continuous ka dhig okay dhe marka u dambeyso kalik ku sii text qor text colorkeeda waxaa ka dhigtaa color 140 okay dhe intaasaa lagaa rabaa cancel marka intaas ku gee muuqaalkan qaybta labaad fiirsa markaas